ما شاء الله muslimiinta meel kasta ay joogaan waxay maanta ka dhiidhiyeen kana caroodeen kana gubteen dareenkoodana la qaybsadeen muslimiintii lagu dhibaateeyey magaalada Christchurch ee dalka New Zealand labadii masjid oo la weeraray sidoo kale muslimiinta ayaa fariin cad u diray cadawga muslimiinta waxayna u sheegeen inaysan cabsi gelin karin sida aad u jeedaan masaajidka waa la soo buuxiyey meel la kala fadhiista ayaa la waayay masaajidadoo dhanna sidaas ayay noqonayaan ayaan filayaa runtii cadawga muslimiinta wuu fara badan yahay dhibaato badanna islaamku waa lagu hayaa natiijadan iyo weerarka lagu qaaday maanta masjidkaasna ma ahan mid aan la filanaynin maxaa yeelay siyaasiyiinta saxaafadda dad badan oo ka mid ah reer galbeedka waxay aad iyo aad u dhiirigeliyaan nacaybka loo qabo muslimiinta saasay tahay muslimiinta waxay ku baaqeen nabad waxay ku baaqeen dulqaad waxay ku baaqeen sabar waxay kaloo sheegeen in ilaahay qofku u qoro uu dhimanayo muslimiinta waxay aaminsan yihiin qadarta Allah subhanahu wa ta'ala waxay aaminsan yihiin inay mar un dhimanayaan nafina aysan ka hormaraynin xilligii loogu talagalay waxaase folxumo ah waxaase ceeb ah inay maanta jiraan dad Soomaalina la sheeganaya islaamaba oran kare oo ku faraxsan ficilka noocaas oo kala ah ayagoo ku andacoonaya oo leh maxaad oga qiira Jabaankan maxay tahay ma ka hadashaan waxa Soomaaliya ka dhaca maalin kasta kuwaasi waxaan u sheegaynaa inay warmoogayaal yihiin waxa Soomaaliya ka dhaca waanu ka hadalnaa waanu ka dhiidhinaa laakiin marka dagaalku uu yahay halbeeguna uu yahay diin way ka daran tahay Soomaali ayada islaysay ayada isqarxisay ayada iskufsatay ayada isdishay waa wax dhaxdooda ka dhacay laakiin arintani arin loo dul qaadan kara ma ahan waxa la beeganayaa caqiida ayaa la beeganayaa diin ayaa la beeganayaa haddaba muslimiinta ku nool qurbaha meel kasta ay joogaan waxa lagu baaqayaa inay isdajiyaan waxa lagu baaqayaa inay mar walba qaataan dhinaca fiican waxa lagu baaqayaa inay sharciga wax u maraan waxba ma tarayso in la xanaaqo in dhibaato kale dad kale loo geysto walaalayaal waxa loo baahan yahay in la wada tashto muslimiinta isu yimaadaan isla markaasna ay cadaadis saaraan siyaasiyiinta saxaafadda iyo cid kasta oo maaragtaa ka shaqaynaysa nacaybka islaamka saas darteed waxaan muslimiinta ugu baaqaynaa inay ilaahay subxaanahu wa ta'ala baryaan gacmahana kor u taagaan walaalayaal waxaanu leenahay caalamkan u sheegaynaa cidna cabsin gelin karta ma jirto diinteenna waan ku dhaganaanaynaa masaajidadeena waanu buuxinaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan u dhawaanaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa dhibka inuu naga qaado dulmiga inuu naga qaado inuu muslimiinta u gargaaro ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa cadawgeena inuu islaamnimada siiyo inay raxmadana la arkaan maxaa yeelay islaamku waa naxariis islaamku waa raxmad wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin bu ilaahay subxaanahu wa ta'ala leeyahay nabi maxamed oo kuumaanan soo dirin illa raxmad moogiye haddaba walaalahayga muslimka ahaw islaamku dadka u sheega nabadda u sheega wanaaga gaarsiiya saad u jeedaan farxad ayaa ka muuqata alxamdulillaah ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu nimcada noo ziyaadiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dembigeena dhaafo mardhow waxaa loo kacayaa salaadii waana la tukanayaa إلهي سبحانه وتعالى صلاة مسلمين تمال والبقي جوغانا كأقبله انتي لمتنا إلهي سبحانه وتعالى ونحرسته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال جمعة مبارك إلهي سبحانه وتعالى على ترسارته انتي لمتنا هلو دعيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته